wardegdeg ah daawadayaal xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya oo mushaarkoodii la bishaan iyo faahfaahin ka soo baxayso sababta ka dambaysa in wili mushaaraadkoodu aysan u dhicin xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ma dhaqaale xumo ayaa soo wajahday dawladda federaalka ah ee Soomaaliya mise waxa jirto qorsho mushaarka looga jarayo xildhibaanada baarlamaanka mudxleedkooda lagu murasayay barnaamijkan waxa idin kula wadaagi doonaa xog xasaasi ah oo ku aadan xaalka xildhibaanada labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya oo wili mushaaraadkooda ay xaq u lahaayeen aysan u soo dhicin qodobada kale waxa ka mid noqon doono faahfaahinadii ugu dambeeyay saraakiil Bakistaani ah oo soo gaaray magaalada Muqdisho tababarna u sameynaya ciidamada cirka ee dalkeena si ay uga taageeraan diyaaradaha GF-17ka dawladda Soomaaliya ay la soo wareegtay barnaamijkan ayaan idin kula wadaagi doonaa xogo iyo macluumaad arintan ku aadan gabagabadana waxaan idin kula wadaagi doonaa geerida Allah u naxariistay imaamkii beelaha Mudulood ee ku timaaday geeridan naxdinta leh iyo xubnihii ugu badnaa oo ka tacsiyeeyay madaxweynaha jamhuuriyadda iyo sidoo kale dhaqanka beelaha Mudulood oo arintani ka hadlay ayaan idin kugu soo gudbin doonaa qaybta dambe ee wararkeena soo dhawaada saaxiibayaal haddii aad saaxiib nagu cusub nagu soo biir muuqaalka like saar artada waxaan dhisaysan ugu leeyahay qaybta hoose faalada dadweynaha aynu ku bilowno wararkeena waxa isu soo tarayo xogaha ku aadan in xildhibaanada labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya wali uusan u soo dhicin mushaaraadkooda xildhibaanadan oo lagu muransan yahay mudxleedkooda dawladdu ay sheegayso inay sharciyad ay ku sii shaqeeyaan ay haystaan iyaga qaar ka mid ah ay ku doodayaan in muddadii rasmiga ahayd ay ka dhamaatay oo hadda ay yihiin xilgaarsiin ayaa hadda wajahaya xaalad aad u adag wararka soo baxaya waxay sheegayaan in xildhibaanada oo maanta bisha oo 3 ay ku beegan tahay aysan wili helin xuquuqdooda mushaaraadkii ay heli jireen 30 bisha wili hore uma dhicin ayaa la leeyahay in xildhibaanadu mushaarkoodu ay waayaan bil dhamaatay oo mid kale ay bilaabatay haddase arintan ayaa soo cusboonaatay isweydiin ayaa taagan taasi oo ku saabsan xildhibaanada mushaarkooda ma waxa ay u laayihiin dhaqaale xumo dawladda oo dhaqaalihii lagu bixin lahaa mushaaraadkooda waxa loogu feesteeyay maalmaha xorriyadda mise waxa jira qorshe kale oo dawladdu ay ka leedahay oo waxa ay doonaysaa inay si gaar ah xildhibaanada mushaaraadkooda ay u kala dirto qaar ka mid ah ay mushaaraadkooda aysan gaarsiin hadda xogta soo baxayso ma jirto xildhibaano la kala saaray oo dhamaanba mushaaraadkooda wili ma helin laakiin macluumaadada qaar ayaa sheegaya in suuragal ay tahay in xildhibaanada mucaaridka ah ee sheegaya in sharciyada ay ka dhamaatay in laga jaro mushaaraadkooda inkastoo xogtaasu aysan ahayn mid sidaas u buuran oo la xigan karo marka laakiin xogahan u helnay waxay xaqiijinayaan in wili dawladda madaxweyne Xasan Sheekh ee mudxleedkeeda lagu muransan yahay aysan mushaaraadka bishan siinin xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya haddaba arintan maxay ka dhigan tahay artayda ku aadan hoose ayaa nagu reebi kartaa warbixinada kale ee barnaamijkeena ku jirana haddii aanu fiirino dawladda waddanka Pakistan waxa ay magaalada Muqdisho ay u soo dirtay saraakiil markaasi ka tirsan ciidamada cirka ee Pakistan haddaba saraakiishan ayaa waxa ay yihiin kuwa tababar u sameynayo ciidanka cirka ee Soomaaliya sawir ku baahay baraha bulshada ayaa muujinayo waa sawirkane ciidan sarkaal ka tirsan ciidanka cirka Pakistan oo ku guda jiro howlgal lagu tababarayo ciidamada cirka ee Soomaaliya haddaba arimahan ayaa waxay imaanayaan iyada oo markaasi dawladda waddanka Pakistan ay maalmihii la soo dhaafay ama bilihii la soo dhaafay dawladda Soomaaliya ay ka taageerisay howlgalada dhinaca cirka haddii ay noqon lahayd inay ku deeqday qaar ka mid ah diyaaradaha dagaalka ee GF-17 qaarna ay ka iibisay dawladda Soomaaliya haddaba sarkaalkan wuxuu ka tirsan yahay ciidanka cirka ee Pakistan muuqaalkiisu wuxuu ku faafay baraha bulshada waxa muujinayaa sarkaalkan oo ciidanka cirka Pakistan ka tirsan inuu tababar uu siinayo duuliyaasha ciidanka cirka Soomaaliyeed gaar ahaan halka tababarku ka dhacayo waa magaalada caasimadda Muqdisho arintan waxay sii xoojinaysaa wararka sheegaya iskaashiga dhinaca difaaca ee u dhaxeeya Soomaaliya iyo Pakistan oo si xooli ah u ballaaranayo iyadoo sidoo kale tan la hadlayo suuragalnimada in Soomaaliya hesho diyaaradaha dagaalka ee GF-17 Thunder Pakistan ayaa caalamka looga aqoonsan yahay tayada sare oo ay ku bixiso tababarka duuliyaasha dhanka militariga
sidoo kale haddii iskaashigan uu sii socdo waxuu noqon karaa tallaabo muhiim ah oo dib loogu dhisayo awoodda ciidanka cirka Soomaaliya isla markaasina kor loogu qaadayo difaaca hawada sare ee dalkeena haddaba arrintan maxay ka dhigan tahay arrintaada hoos ayaa nugu reebi kartaa warbixinada ugu dambeeyo waxaa maanta geeri naxdin leh ku timaaday inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun Allah u naxariiste imaamkii beelaha mudulood arrintaasi oo geeridiisa ku timaadana ay ka tacsiyeeyeen madaxda dawladda federaalka ah ee Soomaaliya imaam Maxamed Yuusuf oo ahaa imaamka beelaha mudulood ee dega magaalada Muqdisho qayb badan oo kamid ah dalka imaamka geeridiisu waxaa si weyn kaga tacsiyeeyay madax kala duwan oo dawladda imaam Maxamed Yuusuf Cali waa imaam muddo dheer ahaa imaamka beelaha mudulood waxa uu ka qayb qaadan jiray nabadeynta xal u helidda khilaafaadka siyaasadda inaysan rabshaduhu waysan dhicin iyo arrimo kale ayuu doorkiisu ah haddaba mas'uuliyiinta iyo sidoo kale salaadiinta dhaqan ee ka tacsiyeeyay ayaan rabaa inaan idila wadaago codadkooda firimbi gaaban in la yeeray firimbiga booliiska jawaabka ku wadana waa arki doontaan foodada ka dhacda baarlamaanka adeertiina waa idin tusaa waa kuwan firimbiyaasha mujadan ya nin kasta loo firimbi wataa sida bambeeda inaan ku dhex yeerino baarlamaanka idin ballan qaadayna waana arki doontaan inaan arrinkaas ka dhiijino ka sameynana waa kuwan firimbiyaasha waa taqaaniin maho baarlamaanka bambe inuu ka dhex furmo kooxo badan waa arki doontaan biidnillaahi kariim oo caawa ku seexdo kuna soo kaca wallaahi aan ku dhaaranay soo dhaar maaha inaanan lagu ansixinaynin si fudud waa u diyaargarownay waa u soo qalab qaadannay keliya waxaan rabaa inaan idinku soo kordhiyo maalmahan shuxshaxda iyo hadalhaynta ummadda Soomaaliyeed ama baarlamaanka ha noqdo waxaa la hadalaya waxaa laleeyahay toosin qaran way baaba'day ama si corruption ay waxbaa lagu siiyey waxbaa la sameeyey iyo toosin qaran waxay baaba'day ma aha toosin qaran way jirtaa guddiga sidiisu u jira waxaan annaga insha Allah markasta aan u taaganahay marxaladaha waddanka ka dhacayo dhan ama marxaladaha dhabta inaan soo gudbino arrinka hadda laga hadlo kale dastuurka Soomaaliya laguma ansixin karo annagoo aan ognahay xukuumadda iyo baarlamaanka inaysan dhaafsiisnayn meesha aan taaganahay ilaa madaxtooye wareegeeda haddii laakiin ilaa ay kaaraan huruwaa maxaa la dhahayay bakaaraha ay xildhibaanada gaari karaan markaasaa aftida dadweynaha lala socon karaa marka inta waddanka xasilooni uu ka helaayo deganaan ka helaayo waa ogtihiin waddankan siyaasiyiinaa joogaan madaxweynayaal horaa joogaan oo xildhibaano ah qaarkood waxaa joogaan ra'iisul wasaareyaal horaa joogaan maamul goboleedyo oo hadda ilaa hadda aanan dawladda heshiis la ahaynna way jiraan waxaan rabnaa xildhibaanada sharafta leh waxaan ka codsanaynaa waxaanan meel dheer aanan gaaraynin inaan foodo ummadda Soomaaliyeed aan u soo hooyino ma aha inaan foodo oo aan u horseedno ma aha waxaan rabnaa inaan isku soo dhaweyno madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya iyo maamul goboleedyada iyo mucaaradka sidii aan u heshiisiin lahayn oo waddankan horumar uu u gaari lahaa sababtoo cadow waxaa nagu filan Itoobiya oo baddeena haysato waxa waa dhibaatooyinka kale oo haysto waxaan leenahay madaxweyne haddee waad adiga shalay waa ogeed mucaarad inuusan waxba tarayna waa og tahay adigaa ah odaygii waddankan xukumayay adigaa ah maxaa la dhahayay odaygii weynaa ama malaaq ama kaaba qabiilka maanta la doortay inuu Soomaaliya hogaamiyo adigaa lagaa rabaa inaad raadisid maamul goboleedyada kaa maqan aad raadisid ka gadid oo ka dhadhacsiisid laakiin hadday mindi ku taag imaado ogaada one man iyo one vote waa majaajilo waay oo mar kastaba la keeno markii ay sanooyinka dhammaadaan one man one vote waxaa la rabaa waddanka markuu xuduud la haysto ayaa one man one vote laga fikiri karaa waa ognahay doorasho dad banay noqon doontaa taasaana la aadi doonaa dastuurkana hal ogaada oo caawa ku seexdo kuna soo kaca wallaahi aan ku dhaaranay soo dhaar maaha inaanan lagu ansixinaynin si fudud waa u diyaargarownay waa u soo qalab qaadannay runta markaa idiin sheegay awal waagi hore waxaa arki jirteen meeno firimbi gaaban in la yeeray firimbiga booliiskaan jawaabka ku wadanaa waa arki doontaan foodada ka dhacda baarlamaanka adeertiina waa idin tusaa waa kuwan firimbiyaasha bismillaahi raxmaan raxiim maanta oo bishii 3 tahay bishii 7 2026
waxaan rabaa meeshaan inaan tacsi uga daro nin madaxweyne oo nugu weyn oo curadkayniya oo sharafkayniya oo madaxayniya oo sanbuuqadayniya oo la yidhaaho maxamed yuusuf cali imaan maxamed yuusuf cali imaan inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun aan leehay. allaha u naxariisto, ilaahay qabrigiisa ha u waasiciyo, ununkana alla nama fidneeyo gadaashiisa. waxaan uga tacsiyeyhaa inti magaca soomaaliyeed, inti duubaba, inti soomaaliya, inti daljoog iyo qurbo jooga, duubabka soomaaliyeed waxaan leeyahay allaha u naxariisto, waxaan leeyahay qabrigiisa allah u waasiciyo. anigoo guddoomiyihii golaha badbaado bulsho ah nabadoon abaabul waa u tacsiyaa maxamed yuusuf cali imaan. allaha u naxariistaan leeyahay, ummadda soomaaliyeedna ha iska cafiso, anigana waa cafinay. qabrigiisana allah u waasiciyo, janno fardowsana allah ka waraabiyo. waa kaasaa tacsidaasaan rabay galabta inaan jeediyo. walaalkayga khudbada markaan gelayaa lay sheegay inuu xijaabtay qoyskiisa iyo caruurtiisa